Mid ka mid ah degmooyinka aan magaalada weyn ka mid ahayn ee fogfog ayaa haweeney waxay ku xanuunsatay gurigeeda dhexdiisa dhowr xanuun. Ninkeedii ayaa waxa uu gudagalay inuu haweeneydiisa geeyo dhakhaatiir badan. Ilaa maantii dambe mid ka mid ah dhakhaatiirtu uu u sheegay in haweeneydani ay u baahan tahay in la qalo. Dhakhtarka qalliinkeeda ku takhasusayna waxa kaliya oo laga helayaa caasimadda weyn. Waa inaad la aadaa haweeneydaada dhakhtarka xariifka ku ah qalliinkeeda meesha laga helayo oo ah caasimadda iyo weliba cisbitaalka uu joogo. Ninkii caasimadda ayuu la aaday gabadhii. Waa la baadhay. Xilliga qalliinkana waa la iclaamiyey oo waa la sheegay. Inta aan xilligii qalliinka la gaadhin haweeneydii waxay miyir doorsoontay. Ninkii ayaa dhakhtarkii u sheegay inuu dejiyo xaaskiisa si intaan la qalin ay u soo miyirsato. Dhakhtarkii ayaa xanaaqay. Ninkiina waxa uu ku yidhi, maxaad noogu keentay gabadhan xanuunsanaysa? Gabadhan inay dhimatayba ku dhowdahayba. Cisho oo gabadhan mar dambe dhakhaatiirta ha u keenin, waayo waqtigeedaba saacado unbaa ka hadhay. Ninkii waa uu murugooday. Intii aanu isu dhiibin warbixintii dhakhtarku u sheegay ayaa waxa u timid gabadh yar oo dhar cadaad sidata. Sheekadoodana meel aan fogeyn kala socotay. Waxayna sugaysay intay gabadhu ka soo miiraabayso. Way u dhoolla cadaysay. Waxayna weydiisay inuu u sheego ninku dhakhtarka fulinaya ka uu yahay qalliinka xaaskiisa. Waxayna u sheegtay in dhakhtarkaasi uu yahay dhakhtarka ugu wanaagsan dunida, uuna fuliyey 10,000 oo qalliin siduu shaqada u bilaabay. Hal shaqo oo ka mid ah shaqooyinkaasina aanay ka fashilmin. Dhammaantoodna shaqooyinka uu qabtay ay la mid yihiin inta ay xaaskiisu u baahan tahay. Waxayna weydiisay bal in uu ka aqbalay dhakhtarku qaabilaadda qalliinka inuu fuliyo. Waxaa tihiin dad nasiib leh ayay ku tidhi. Ninkii markuu warbixintaas helay xaaskiisii ayuu fiiriyey isagoo faraxsan, iyadana nafsadeedii ay kor u soo kacday. Daqiiqada ka gadaalba haweeneydii waxaa la geliyey qolkii qalliinka. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Gabadhiina waxay ku oroday markiiba dhakhtarkii afxumada kula dhaqmay, waana ay soo maagtay. Waxayna gudagashay inay xasuusiso xadiiskii nebiga ee ahaa, haddii aad u soo gashaan qofka xanuunsanaya u dheereeya waqtiga, macnaha niyadda u hagaajiya. Xataa haddii qofkaasi uu xilli dambe joogo, arrintaasi waxba kama celinayso, laakiin naftiisa ayay korinaysaa oo qofka naftiisii ayaa ku hagaagaysa. Markii howlgalkii qalliinku uu soo dhammaaday, ninkii waxa uu digtoorkii ugu mahadceliyey shaqada uu qabtay. Waxa uu raadiyey gabadhii dejisay xaaladdiisa, isagoo yaqiinsan inay ka mid tahay kalkaaliyayaasha cisbitaalka. Waxaana uu gudagalay inuu siiyo mukaafaca hantiyadeed ama wax uu ugu bedelayo dhiirigelinteedii. Waa ay ka diiday inay ka qaadato lacagtii, iyadoo ogeysiinaysa in caafimaad ahaan la ogaaday mar kasta oo qofka xanuunsanaya uu haysto dhiirigelin inuu awood u leeyahay inuu ka adkaado cudurka isaga haya markaa. Markaana anigu waxaan dareemayay inaad ku saamowday warbixintii dhakhtarkii aan mas'uulka ahayn ee kuu sheegay. Sidaas daraaddeed anigu waxaan idinka sugay ilaa ay gabadhu soo miiraabto, markaasoo aan u sheegay dhakhtarka wanaagsan ee hawsha qaban doona iyo dhiirigelintii aan idinku darayba. Fil xaqiiqa maba ihiba anigu kalkaaliso, laakiin waxaan ahay bay tidhi dhakhtarad cusub oo maanta oo keliya shaqada bilaabaysa. Xitaa wax kale iska daayay, anigu ma aqaano dhakhtarka shaqada idiin qabanayay. Keliya anigu waxaan ku dhaqmayay oo beenta idinku sheegayay anigoo ka amar qaadanaya xadiiskii nebiga ahaa bashir walaa tunafiru, oo macnaheedu yahay u bushaareeya dadka hana didinina. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.